su'aasha 18aad niyada maxalkeedu waa halkee ku dhawaaqa se lagu dhawaaqaa niyadii ma ka mid tahay sunnase ma tahay jawaabteedu waxay tahay niyada maxalkeedu niyada meesheedu waa qalbiga maxalluha alqalbu maxalka niyadu waa qalbiga laga niyeeyaa ku dhawaaqa lagu dhawaaqayaana niyada kama mid aha laakiin fuqahada qaarkood waxay u jeclaysteen oo u istixbaabeen xaadirinta niyadii qalbiga lagu soo xaadirinayo si markaa loogu kaashado bay fuqahada qaarkood u jeclaysteen sida saxiixana waxay tahay waa inayna sunno ahayn oo in niyada lagu dhawaaqaa sunno ma aha nebiguna calayhi salaatu wasalaam kuma dhawaaqinoo wax xadiisa looma hayo wakadaalika saxaabadiisana lagama hayo inay ku dhawaaqeen niyada hadday sunno ahaan lahaydna nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisaa samayn lahaa low kaana khayran la sabaquuna ilayh hadduu khayr ahaan lahaa way inooga dheerayn lahaayeen yani nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau ihi maa bacasa allahu min nabiyin ila kaana xaqan calayhi an yadulla ummatahu min khayri maa yaclamuhu lahum yani nebi kasta uu ilaahay soo diro waxa xaq ku waajiba ahaa inuu ummaddiisa khayrkuu og yahay u sheego sharkuu og yahayna uga digo marka haddii arrinkaa khayr ku jiro ku dhawaaqa niyada lagu dhawaaqayo oo la odhanaayo nawaytu an asuuma hadan nebiga calayhi salaatu wasalaam baa ummadda ku baraarujin lahaa u sheegi lahaa umana sheegin nebigiiyo saxaabadiisaa samayn lahaa manay samaynin miday sameeyeen ma aha marka waxay noqonaysaa inay shay markaa waxa weeye sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam ee tarkiga ahayd inay khilaafsan tahay bay noqonaysa nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sameeyey si ay sunno u tahay ayaa waxa uu ka tegayna in laga tagaa ay markaa sunno u tahay waxa uu ka tegayna in laga tagaa ay sunno u tahay sidaas aawadeed yacni markaa fadiilo ku jirta hadday jirto waa laynoo sheegi lahaa marka qalbiga in laga niyeeyaa ku filan saasayna sunnadu tahay wallaahu aclam